haatana waxaa la gaaray waqtigii aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga. kusoo dhawaada dhegeystayaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتم wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan. waa barnaamijka arrimaha bulshada iyo ganacsiga ee aad ka dhegeysataan, aadna ka daabataan page-keena Soomaali weyn, aadna ka barataan waqti kastaba xilligan oo kale inaad naga dhegeysataan barta otta ee bartiile. dhegeystayaal, barnaamijkeena maanta inta badan wuxuu ku saabsanaan doonaa gabi ahaantiisba haddaan dhaho heerarkii uu soo maray farta Soomaaliyeed iyo waqti xaadirkani heerka ee marayso. barnaamijkeenan waxaa ku marti ah Professor Cabdiqaadir Rumi oo ka mid ah akademi goboleedka farta af Soomaaliga. waxaan kugu soo dhaweynayaa Professor barnaamijka arrimaha bulshada iyo ganacsiga ee Radio Soomaali Weyn. bismillahi raxmaan raxiim. aad ayaad u mahadsantihiin bahda Soomaali Weyn magaalada Yutumburi. barnaamijkaas ay usoo dhaweyseen anigoo dhowaan soo gaaray magaalada Yutumburi si aan kulan ula qaato wadatashi iyo warbixin ah yaalida Soomaalida ee magaalada Yutumburi ee dalka Sweden. mahadsanid saaxiib. Professor, waxaad inooga warbixisaa maadaama aad ka mid tahay akademi goboleedka ee af Soomaaliga heerarkii ee soo martay farta Soomaaliyeed bidaayada markii la qoray intaan la qorinba heerarkii ay soo martay anagoo u gudbi doono waqti xaadirkan xaaladda ay ku sugan tahay. bismillahi raxmaan raxiim. qoraalka farta Soomaaliga wuxuu soo maray halgan weyn oo aan lagu soo koobi karin barnaamij yar. wuxuu soo bilowday halgankaas ma fahamsantahay wuxuu soo bilowday haddii aynu ka warano 1949kii markaas oo uu dalka ku jiray xukunkii afis ma fahamsantahay sanadamadii 10 sano ugu dambeeyay 50kii ilaa 60kii dalka Soomaaliya waxaa gacanta ku hayay dowladda Talyaaniga iyadoo ay jirtay barnaamij loogu talagalay in Soomaaliya lagu gaarsiiyo gobonimada. waqtigaas ayuu soo bilowday halgankii loogu jiray qoraalka farta Soomaalida. markaan fiirinana xisbigii SYL oo gobonimada u halgamayay wuxuu xoogga saaray in la qoro farta Soomaalida. ajendihiisa qodobkii 5aadna wuxuu ahaa qoraalka farta Soomaaliga. marka 10kii sano ee lagu jiray ma fahamsantahay xukunkii Talyaaniga ee gobonimo gaarsiinta Soomaaliya dood weyn ayaa dhacday oo la xiriirtay farta loo adeegsanayo qoraalka afka Soomaaliga. doodaas waxay dhexmartay dhammaan dadkii joogay xilligaas waxgaradka ahaa iyo dadku u ololeynayay in la qoro farta Soomaaliga oo kala watay farayaal kala duwan. dadkii halganka u soo galay waqtigaas kulligood doodooda waxay ahayd fartee loo adeegsadaa qoraalka afka Soomaaliga. dadka qaarkood waxay qabeen in loo adeegsado farta Carabiga ah oo waxay dhahayeen annaga dad muslimiin ah nahay ma ka go'i karno mujtamaca islaamka oo adduunyada ka jiro. waxay dhahayeen farta Carabiga waa far xadaarad weyn huwan far aad u horumarsan waaye. marka waxay qabeen in lagu qoro ma fahamsantahay farta Soomaaliga ah ma fahamsantahay afka Carabiga oo la adeegsado farta Carabiga ah. dad kale ayaa jira oo ka soo horjeeday waxay qabeen in la adeegsado farta Laatiinka. waxay dhahayeen adduunyada farta Laatiinka ay ku wada xiriirtaa. Laatiinka luqado badan ayaa ku qoran sida Talyaaniga, Ingiriiska. marka farteena way sahlanaan doontaa in haddii lagu qoro farta Laatiinka ah culunta adduunyada ku qoran fartaas loo gudbiyo dadka Soomaalida wayna ka faa'iideysan doonaan. gruubkaas ay ahaan kooxdaas ahayd. gruub saddexaad ayaa jiro waxay qabeen in iyadana lagu qoro farta Soomaaliga Cusmaaniyada farta la yiraahdo oo waxaa dadkaas hogaaminayay Cusmaan Yaasiin Cusmaan Kennedy in la yiraahdo gruubkiisa ma fahamsanta xirsi magan. gruubkaas ay ahaayeen ayagana waxay qabeen in loo baahan yahay dadka Soomaaliga far ay leeyihiin oo ka duwan faraha shisheeyaha
ama qoraalada shisheeyaha in la isticmaalo oo ah farta cusmaaniyada. waa la soo gudbay, gobonimadii ayaa la qaatay, fahamsan tahay. gobonimadii markii la qaatay dood weyn ayaa idana dhacday, guddiyo badan ayaa loo xilsaaray dowladihii waqtigaa jiray si farta soomaalida loo qoro, laakiin dhib wuxuu ka jiray fartee la qaadanaa. markaa isku soo duub 19 sano ayaa laga doodayay farta loo qaadanayo ma fahamsata qoritaanka afka soomaaliga. waa tahay professor, ma jirtaa soomaalida waqtiyadii hore inay far laheedo wax qori jirtay? dadka qaarkii waxay dhahaan sumadoo kale soomaalida magacaas oo kale farar hore u laheed ayay ka mid tahay. waa ogahay faraha casriga ah oo duniyada ka jiro oo qoraalada ama alfabeetka loo yaqaano ama alifbaada af soomaalida ma leheen. farteeda waxaa la qoray 1972 ka hor ma leheen, laakiin waxaa jiray xoolaha iyo waxyaalaha astaamaha ay ku qoran jireen, ay isku aqoonsan jireen, reeraha iyo jilibiyada iyo waxyaalaha iyo deegaanada laga isticmaalo. laakiin far casri ah oo alifba ah ama ABC ah waxa loo yaqaano ma jirin oo soomaalida ay isticmaali jireen xilliyada fog. laakiin waxaa la isticmaali jiray faraha kala duwan ee adduunyada ka jiray. alifbaada sida af ingiriiska fartooda ayay isticmaali jireen dadka wax bartay, qaarkood farta talyaaniga ayay isticmaali jireen, qaarkoodna afka carabiga ayay isticmaali jireen. qoraalku wuxuu yimid oo la hirgeliyey dowladda militariga ayaa hirgelisay. waxaa kaloo xusid mudan in 9 sano ama 10 sano aan ku jirnay xukunkii ma fahamsantahay gobonimada lagu gaarsiinayo soomaaliga oo talyaaniga hogaaminayay, dood badan ay dhacday. doodaas 9 sano 10 sano waxaa lagu soo qorayay joornaaladii waqtiyadaas jiray. joornaaladaas waxaa kamid joornaal la dhihi jiray Il Giornale oo af talyaani ku qornaa. dadka wax soo qorayay waxaa kamid aadan cabdulla cusmaan oo markaas noqday markaas kadib madaxweynihii dalka soomaaliya. qoraalla ayuu qori jiray oo ah dadka soomaaliyeed inay yeeshaan far ayaga u gaara. dadkii kaloo wax soo qorayay waxaa kamid nin la yiraahdo El Monde oo asagana dadkii waqtigaa jira ahaa. waxaa kamid ahaa nin la yiraahdo xasan cali mire oo asagana wax soo qorayay oo dhahayay kulligood waxaa lagu soo qorayay joornaalka talyaaniga ku qornaa waqtiyadaas oo dalka kasoo baxayay. waxaa kaloo kamid yaasiin cusmaan Kennedy. ma fahamsantaa. marka dood weynaa dhacday. dooda ugu weynna waxay dhexmartay gruubkii aaminsanaa in af carabi lagu qoro iyo gruubkii aaminsanaa in lagu qoro farta laatiinka. aad ayay doodooda u badneed, heer la gaaray in la yiraahdo ma fahamsantahay haddii lagu qoro af laatiinka micnaheeda waxaa waa laa diin la-aan waa. dadka carabiga waxay dhahayeen maya, diinteena ay rabnaa inaan xafidano, waxaan rabnaa inaan xafidano ma fahamsantahay jiritaankeena islaamnimada, sidaas awgeed af carabiga inaan qaadano. dadka talyaaniga ay aaminsanaa iyo farta laatiinka in wax lagu qoro ayagana waxay dhahayeen non dobbiamo odiare il latino, taasoo micnaheeda yahay yaana la nicin laatiinka. ummado badan ayaa far kale isticmaalo muslina, waa badan yihiin. sida waxaa kamid ah dadka urduuga fartooday leeyihiin, dadka iiraanka kamid fartooday leeyihiin, muslimnimadoodana way ilaalsadeen. marka waxay leeyihiin jireen yaan isku xirin ma fahamsantahay islaamnimada iyo farta aan qaadanayn. kuwa kalena waxay dhahayeen maya, annaga carabiyaan nahay, waa inaan isticmaalnaa farta carabiga, haddii kale muslimnimadeena ayaa khatar gelayda. marka dood xiise leh waaye, qoraallo badan laga qoray ma fahamsantahay. qoraaladii oo dhan soomaalida looma soo gudbin. shacbiga soomaaligana inta og waxaas 5% ama 3 ma dhamo. maxaa qoraaladii kulli waxay ku qoran yihiin af talyaani. marka dhibkaasaa jira. aad iyo aad. professor, waxaa jirta in afka soomaaliga uu isku eg yihiin xoogaa dowladaha deriska ah, haba noqotee Ethiopia iyo Eritrea marka la fiiriyo, iyo Djibouti ba qabaa'ilo degan. marka ma la isdhihi karaa in luqadda soomaaliga maadaama Ethiopia iyo qabaa'ilo qaarkii ay isleeyihiin, ma la isdhihi karaa marka soomaalida maadaama ay tiro badan yihiin waxaa macquula luqadii asalka ahayd oo afkaasi hooyadu u ahayd? waxaa jira oo la baaray asalka dadka soomaalida meeshay ka yimaadeen, waxaana la adeegsaday luqadda. luqadda soomaaliga waxaa lagu tiriyey inay kow ka mid tahay afro-asiatic languageka la yidhaahdo, bahda weyn oo afafka loo yaqaano afro-asiatic. bahdaas markii laga soo tago waxay hoos imaanaydaa bahda kushitikada. kushitikada waxaa looga hadlaa ugu badan geeska afrikada. waxaan bahwadaag la nahay ama aan la wadaagnaa luqadda dadka canfarta ah, dadka oromada ah, dadka soomaalida ah. dadkaasoo dhan isku bahana. korna waxaan isku bahnahay bahda
loo yaqaano afro asiatic waxaa soo hoosgalayo semitic waxaa ka mid ah afka carabiga, waxaa ka mid juushka afka dadka israa'iil ay ku hadlaan, afafkaas oo dhan waxaan kor ayaan ka wadanahay afro asiatic. laakiin hoos ahaan waxaan aada isugu dhownahay bahda kushitikada, weliba bahda bariga kushitikada ayaan nahay, oo waxaan asal wadaag la nahay oo luqadeena qaab ahaan si u dhismaydo siday ugu horumaraydo waxaas oo dhan waxaan isaga mid nahay canfarta iyo oromada, dadkaasaan aada isugu dhownahay. aad iyo aad professor haddaan usoo gudubno waqti xaadirkaani luqadda ama maxay ahata farta soomaaliyeed maxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta? dhibaatooyin waaweynaa jiro. dhibaatooyinkan waxay ka yimaadeen qaranjabkii soomaaliya ku dhacay. qaranjabkii markuu dhacay waxaa dhibaato soo gaaray dhammaan hay-adihii dowladda. hay-adaha dowladda waxaa ka mid ah hay-adihii waxbarashada, waxaa ka mid ah hay-adihii dhaqanka, waxaa ka mid ah hay-adihii warfaafinta. af soomaaliga ma nabadgelin, jug weyn ayaa soo gaartay, daqar weyn ayaa soo gaaray. haatan ayaa waxaa loo baahan yahay baraarug oo dhashay kadib in dib u kabasho ay timaado, af soomaaliga uu helo dib u kabasho. waxaa dhacay dhibka ugu weyn af soomaaliga wuxuu noqday luqad guriga leh loo isticmaalo, lagu hadlo. ma aha luqad waxbarashada loo isticmaalo dalka gudihiisii, ma aha luqad loo isticmaalo maamulkii dawliga ahaa oo xafiisyadii misku qoraan warqado. manhaj waxbarasho oo dalka soomaaliya uu ka midaysan yahay oo af soomaaliga lagu baranayo ma jirto. marka waxaa ku dhacay wuxuu lumiyey laba aag oo horumar u ah luqadda. labadaas aag waxaa waay aagga waxbarashada iyo aagga adeegsiga maamulka dawliga. dhibkaas weyn ayaa soo gaaray. sidoo kale unesco warbixinada ay soo saarayda waxay sheegaysaa inaan afaf gaaraya 3,000 ay khatar ku jiraan. af soomaaliga wuu ka mid yahay laleeh. unesco waxay soo saartay wax la yidhahda afdilayaal oo afka dilayo. 9 markii la yidhaahdo 8-7 ayuu af soomaaliga qabaa afdilayaashaas oo dhibaatada gaarsiinaya. marka dhib weyn ayaa soo gaaray af soomaaliga. dhibkiina wuxuu ka soo gaaray oo ugu weyn adeegsi la-aan iyo dad badan oo soomaaliya oo dibadda soo aaday carruurtoodii ku dhalanaya, taasoo iyadana khatar kale ah. marka arrimahaas oo dhan waxaa loogu gudbi karaa in loo hiiliyo afka soomaaliga, dib loo soo nooleeyo, iyo adag ka shaqeeyo, iyo dad cusub oo soomaali ah oo bartay luqadaha inay soo baxaan oo ka qayb qaato horumarinta luqadda afka soomaaliga iyo sugaantiisa iyo dhaqankiisa. waa tahay doctor, haddaan usoo jeesto akademiya goboleedka aad ka tirsan tahay, iyada waqti xaadirkan howsheedu maxay tahay, waxyaabadkay qabato? aada umahadsan tahay saaxiib. waxaa jirto akademiyada af soomaaliga ama akademiya goboleedka af soomaaliga. waxay ka shaqeynaysaa in la horumariyo af soomaaliga, inuu af soomaaliga helo daryeel. sida waxaa jiro loogu baahan yahay in deegaanka dabiiciga aan ku noolnahay daryeel ay ugu helaan, jidadka loo nadiifiyo, geedada loo dhiso oo cagaaran oo indhaha soo jiito deegaankaan ku noolnahay. waxaa loo baahan yahay taasoo kale in luqadiina la daryeelo. markaan fiirino af ingiriisiga ereyga la yidhaahda care ama daryeel markaad tidhaahdo, waxaa kuu soo baxaya markaad dictionarygooda furto qaamuuskooda ugu yaraan 2 waxaa kuu soo baxaya baal ama 2 page oo kulligood daryeel ah. waxaa kuu soo baxaya child care, waxaa kuu soo baxaya health care. ereyga daryeel aad ayaa loo isticmaalaa luqadaha afafka yurub oo dhan. wax kastana way daryeelaan, deegaankooda ayay daryeelaan, caafimaadkooda ayay daryeelaan, luqadooda ayay daryeelaan. annaga kaalintii ereyga daryeel waxaa noo gala dayacaad. wax kasta waa dayacan yahay, caafimaadku wuu dayacan yahay, deegaankii dabiiciga wuu dayacan yahay, luqadii way dayacan tahay, wax kasta wuu dayacan yahay. af soomaaligana dayacaadaas ayuu soo hoosgelayaa. haddaba si dayacaadaas looga baxo waxaa laga maarmaan noqotay in la helo hay-ad ka shaqayso in la daryeelo af soomaaliga. waxay dhalatay June 2013 waxayna ka dhalatay dalka Djibouti. khayr allaasi madaxweynaha Djibouti ayaa hormood ka ahaa in muddo ah. markii soomaaliya dhibaatadii qaranjabku ku dhacay, asaga wuxuu u jeestay in la horumariyo afka soomaaliga, in la horumariyo sugaanta soomaaliga. dalka Djibouti ayaan muddo ku shaqaynayn 2013. haatan waxaan usoo gurnay dalka soomaaliya magaalo madaxdii muqdisho. halkaas ayaa xarun u ah. madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxay dhagax dhigeen akademiyada xarunteeda oo noqon doonto magaalada muqdisho. halkaas ayaa howlaha ka socdaan. haddaba maxaa socda howlaha? howlo badanaa socda. howlaha noocyo badan ay isugu jiraan. waxaa ka mid a nooca wacyigelin, in ummadii loo sheego in afkii soomaaliga khatar ku jiro. kow, dadkii laga dhaadhacsiiyo in khatartaas loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo,
iskaashi wax wada qabsi si loo horumariyo fartii soomaaliga afkii soomaaliga. arrintaas horta waa jirtaa wacyigelinta oo barnaamijyadan aan ku imaanayna dalalka kala duwan arrintaas ayaa la xiriirtaa oo ah u hiili afkaaga hooyo. qof kastoo soomaaliya hiilka qayb ayuu ka geli karaa. ma fahamsan tahay waalidiinta ugu yar in ilmahooda afka soomaaliga baraan guriga markay joogaan ay kula hadlaan hiilka ayuu ka mid yahay. arrinta kale socota waxaa waye cilmi baaris ayaa socoto. cilmi baaristaas waxay la xiriirtaa qaybaha kala duwan oo afka soomaaliga, dhinaca sugaanta, dhinaca luqadda, dhinaca dhaqanka, waxyaalahaas oo dhan. sideedana luqadda waxaa sida oo xambaarsan luqadda haddii dhunto eber waa. ma fahamsan tahay marka arrintaas ayaa akademiyada ka shaqeynayda. guddiye ayaa jira marka guddiyadaas waxaa ka mid ah guddiye cilmi baaris. qaarkood waxay baarayaan sugaanta soomaalida. ma fahamsan tahay ayay baarayaan maxaa horumarkay ku tallaabsatay sugaanta noocyadeeda kala duwan, hadday noqon lahayd gabayada, hadday noqon lahayd geeraarada, hadday noqon lahayd buraanburka. qaybtaas ay qaabilsan yihiin. gruub kale ayaa jira waxay baarayaan ereyada cusub af soomaaliya kusoo kordhay. ereyadaas si ay usoo saaraan qaamuus weyn oo uu ku qoran yahay dhammaan ereyada afka soomaaliga. qaybtaasna gruubkaasna saas waa. gruub kale ayaa jira naxwo af soomaali leeyahay oo dadku dhan isticmaali karaan oo sharciyada marka a wax qorayda a raacayso farta soomaaliga sida u qoraydo. gruubkaas naxwaha ayay horumarinayaan. gruubyadaas oo wada jiro waxay dhowaan soo saareen buug lagu magacaabo afmaal. buuggaas oo ay ku qoran yihiin rag badan oo qorayaal ah. waxaa ka mid ah raggaas haddaan sheegay professor cabdalla mansuur oo jaamacadda roma wax ka dhigo. waxaa ka mid ah axmed faarax cali idaajaha. waxaa ka mid saciid saalax. gurubo badan, zaynab gabar la yidhaahdo. ma fahamsan tahay dad u dhashay dalkaasi jabuuti oo ayagana qorayaal ayaa ka mid ah. ma fahamsan tahay cabdirashiidna la yidhaahdo. dadkaasoo dhan maxamed daahir afraxa ka mid ah oo guddoomiyeena. dadkaasoo dhan waxay soo saareen buuggaas lagu magacaabo afmaal oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo cilmi baarista la xiriirta afka soomaaliga qaybaheeda kala duwan, qaybta naxwaha, qaybta sugaanta, qaybahaasoo kala duwan. waa tahay professor haddaan u wacdo dhanka iyo dowladdii hore kacaanka ee qabtay farta soomaaliga, ma la isdhihi karaa dowladdii hore farta iyadoo dhammaystirnayn ayay ka tagtay, mise fartii oo dhammaystiran oo aan waxba u dhinnayn ayay dowladdii sida ku tagtay, mise far soomaaligii qabyo ayuu ahaa markii la qoraya? runtaa waaye arrintaas waa asiibtay in muddaha waxaa laga hadlayay in loo baahan yahay. ma fahamsan tahay in la joogteeyo horumarinta af soomaaliga. dowladda militariga way dadaashay. 9 sano waxay qaban weyday dowladdii ka horreysay ayay ida qabatay ku dhiiratay. 72 farti ayaa la qoray. waxaa ku xigay ololihii oo la aaday 1974 oo dadkii miyiga joogay lagu baray qorista iyo ma fahamsan tahay akhrintii afkii soomaaliga. guul weyn ay ahayd. waxaa la sameeyey sidoo kale manhajkii waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare. laakiin wax kastoo la qabto waxaa ka yimaada dhaliilo badan ayaa soo baxay. dhaliiladaas waxaa ka mid ahaa oo la leeyahay waxaa fiicneyd markii la hirgelinayay manhajka waxbarashada af soomaaliya ku qornaa hal mar inaan la bilaabin dugsiga hoose dhexe sare. marka hore lagu bilaabo dugsiga hoose fasal kadib loo gudbo dugsiga dhexe kadib loo gudbo dugsiga sare. hal mar ayaa lagu bilaabay dugsiga hoose dhexe sare. taas dhibaatay keentay. midda kale oo dhibaatada keentay waxay ahayd manhajka waxbarashada gaar ahaan midkii af soomaaliga lagu baranayay. ma fahamsantahay waxaa xoogga la saaray kacaanka in laga sheekeeyo horumarkiisa. waxaa kaloo xoogga la saaray sugaanta, ilmihii inay xafidaan gabayo. meeshii maxaa ka baxay ilmihii in la bari waayo xeerarkii luqadoodii. cunuga dugsi sare ka soo baxaya ma yaqaano luqadahan kale sida loo u bartaan naxwahooda oo adjective ma yaqaano, articleka ma yaqaano soomaaliya qodob hadduu leeyahay, tilmaame maxaa u af soomaaliga ma yaqaano, xiriiriyi maxaa u ma yaqaano. dhibkaasaa yimid oo ah ilmihii in la baro keliya sugaan iyo ammaantii kacaanka oo aan la barin naxwihii iyo xeerarkii saldhigu u ahaa marka aa qoraydo ma fahamsantahay farta soomaaliga. meeshaas ayaa wuxuu ka yimid dhaliil weyn. aad iyo aad. laakiin hadda sooma habboon in akademiyadiini in haddaba idinkaba aata baarista asii samaysaan. tusaale oo kale hadda farta qorista soomaaliyeed in ma iyo maxaa tiri lahajada u kala baxdo oo kale mayga xoogaa in ay ku adag tahay qoristeedii. taasoo kale ma ka baaraan tagteen iyo midda garaamarka aad ku soo celceliso oo kale. garaamarka oo kale iyadana aniga xitaa dugsi sare oo kusoo qaata xoogaa wuu adkaayo. midkaas oo kale mid la jilcin karo dadka lahjadahoo dhan ay fahmi karaan. akademiyadiini maanta ma ka fikiraysaan? akademiyada howlo badan ay wadaa. howlahay wada waxaa ka mid ah qoraaladaas aad sheegayso
in la qoro ma fahamsan tahay buug naxwo ah waa la wadaa hawshaas waa lagu guda jiraa in la qoro buug naxwo ah oo dadka soomaalida o dhan ay fahmaan oo qofka soomaaliga hadduu rabo warqadda inuu qoro qofka soomaaliga hadduu rabo buug oo qoro meeluu ka eegto shuruucdii qoritaankii farta soomaaliga la helo hadda habka ay wax ku socdaan hab fiican maaha qof kasta buugaagu isku qorooyaa meel loo tixraaca ma laha ma fahamsantahay joogsi ma leh dhibici ma leh hakad ma leh qof kasta wuxuu rabo iska qorooyaa dhibaa ka jira arrintaas waxay keenaysaa waxa la yidhahda af ingiriiska confusing in dadkii wax aqrinaya confused ay noqdaan jahwareer meeshaas uu ka yimaado oo la aqaan waayo xarfihee laba laabmo xarfihee aan laba laabmin dadkii kacaanka guddiga ay u saareen markii in la qoro farta soomaaliga waxay soo saareen xeerar 7 ah ay yidhaahdeen 7daas xaraf ayaa laba laabmay ba da ra ga la ma na hadda waxaa arkaydaa nin ya laba laabayo marka waa fahmaysaa xeerarkii dhanuu jibinooya marka arrintaas ma aha keliya wax ku kooban luqadda dalkii oo dhan ayaa waxaa lagu wadaa wax la yidhaha xeer jajab meel kasta garsoorka xeer jajabaa lagu wadaa wax kastoo soomaaliya xeer jajab ay noqdeen laakiin hadda waxaa moodaa xoogaa in horumar bilaabanayo ma fahamsan tahay oo loo baahan yahay in laga doodo horta hore dhibaato ma jirtaa af soomaaliga dib u dhac muudha ku dhacay hay-adihii sidee loo dhisayaa dadkii sidee loo baraarujinayaa gaar ahaan dadka dibadda ku noolaa oo loogu sheegayaa af hodan inay qabaan loo baahan yahay afkooda inay daryeelaan oo uu dayacaadda ka baxo arrimahaas oo dhan waa howlo hor yaallo akademiyada laakiin akademiyada hormood keliya ayay noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay bulshadii oo dhan inay ka qayb gasho ma fahamsan tahay oo kulligood loo soo jeesto in loo hiiliyo afka hooyo waata professor hadda su-aashaani inta badan adig ayay ku quseen doontaa maadaama aan dib u dhigto markii hore inaan ku weydiiyey ahayd laakiin aan jeclaaday inaan dib u dhigo adiga way aragnimadaadii weriyaa ahayd haatanna professoraa tahay way aragnimadaadii af soomaaliga heerka uu soo gaaray adigoo nooga sheekeynayo waagaad weriyihii ahayd iyo waqti xaadirkan waxqabadka aad u qabanaysa far soomaaligii adoo in lagaaga mahad celiyo mudan bal nooga sheekey waayigaagii aada umasantahay saaxiib aniga qayb weynaan ka qaatay horumarinta af soomaaliga qoraallo badan waa qoray cilmi baaris waa sameeyey waxaana fursad u helay 3 meel oo af soomaaliga laga horumarinaya inaan ka shaqeeyo kow jaamacaddii ayaa macalin ka ahaa weliba qaybta waxaa macalin ka ahaa luqada waa qayb muhiimida oo af soomaaliga hoos imaanayda akademiyadaan ku jiray akademiyadii cilmiga fanka iyo sugaantaan ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay qaybtii luqadda qaybtii qorayda qaamuus af soomaaliya 80kii dhammaadkiisa intaan dagaalada dhicin raadiyo muqdisho waan joogay ma fahamsantahay weriyaan ka ahaa raadiyo muqdishona haddaan usoo noqono meesha ugu weynay ahayd ereyada cusub la isticmaalaya casriga ah oo af soomaaliga laga horumarinay tusaalaan kusoo qaadaya raadiyaha waxaa lagu amray inay isticmaalaan ereya soomaaliya intaan raadiyaha ka shaqeynayay waxaa la isweydiiyey saacad in la bedelo weriye caan ayaa noo jooga aad iyo aad aftahna waa cabdalla nuurudiin aa layidhaha allah u naxariisto jannadan allah ka waraabiyo cabdalla nuurudiin ereygii saacaduu bedelay oo dadka isticmaalaya oo ahaa goraysato erey la yidhaha keen suuquu geeyey erey markaa adiga keento waxaa la rabaa suuqa inaad geyso suuquu geeyey idaacadda markuu soo xirayay wuxuu dhihi jiray goraysatada raadiyo muqdisho haatan waxay sheegaysaa 12 waa waqtigan hawada ka bixi jirnay shacbigu waa u cuntumi waaya ereygii saacadaa xoog yeelatay sidaas awgeed waxaa lagu soo noqday saacad ayaa la isticmaalay saas awgeed raadiya dadka joogay dad aqoon leh ahaayeen dadka soo maray kulligood waa dadka dalka soomaaliya xukumay ama soo xukumay kulligood ama professorro ka noqday adduunyada waxaa dhaca raadiya marka laga shaqeyn jiray raadiyo muqdisho dadka waxaa lagu qaadan jiray 3 arrimood kuwa waxaa lagu qaadan jiray cod fiican inuu leeyahay laba waxaa lagu qaadan jiray inuu aqoon leeyahay aqoontaasna ay tahay waxa la yidhahda ingiriiska aqoon guud general knowledge inuu leeyahay waxyaalahaas lagu qaadan jiray waxyaalaha kaloo muhiimka ah waxaa ka mid ah inuu afka soomaaliga qoraalkeeda iyo akhrinteeda uu yaqaan shuruudahaas way adkaayeen qof oo kasoo bixi karo barnaamijyadana waxaa loo kala dhiibi jiray dadka si u kala khatarsan yihiin dadkana 2 nooc ay ahaayeen barnaamijyada nooc waxay ahaayeen dad shaqaale rasmi ka ah wasaaradda warfaafinta hanuuninta dadweynaha u shaqeyn jiray dadna waxay ahaayeen part time aniga waxaan ahaa dadka part time ka ahaa saacadaha qaarkood idaacadda ka shaqeynayay oo u yimid meesha inay ka qayb qaataan horumarinta warfaafinta dalka maraykanka ayaan tegay ani cilmi baarisaan sameeyey shirweynihii cilmi baarista soomaalida 1993 magaalada Boston aan tegay waxaan soo bandhigay meeshaas kusoo bandhigay bishii December magaalada Boston dalka maraykanka cilmi baaris aan sameeyey cilmi baaristaas waxay caddeynaysa qaybta weyn ee warfaafinta Soomaaliya ka qaadatay horumarinta afka Soomaaliga gaar ahaan ereyadii cusbaa
ee keentay oo aada loo adeegsaday ereyadaas waxaa ka mid ah jaalle 9 sano oo waqtiga gacaanka jiro o dhan ereyga jaalle wuxuu ahaa ereyga ugu caansan oo ahaa af soomaaliga jaalle maxaa dhacay muxuu u noqday ereygaas wuxuu u noqday waxaa loo adeegsaday meel kasta wuxuu noqday madaxweynihii jaalle in lagu magacaabo wasiirkii jaalle in lagu magacaabo shaqaalihii marka erey wuxuu noqday kulli dadku dhan maskaxdooda kulli ay gasho oo qof aan aqaanin yar iyo weyn oday roole uusan jirin marka waxaa fahmaydaa warfaafinta qaybta ay ka qaadatay horumarinta inuu ahaa wax weyn marka qaybtaas aniga qaybaan ka qaatay waxaan barnaamijyadan sheegayay barnaamijyada ugu waaweyn ay ahaayeen siyaasadda barnaamijkan sheegayay talaadada wuxuu ahaa barnaamijka bandhiga radio barnaamijka ugu weyn ayuu ahaa maalintaas oo dhan barnaamijyada jira nus saac ayuu soconayay nus saacaas waxaa la rabay inaan kusoo koobo maxaa waaye wararkii newska ahaa ma fahamsantahay hees inaan kusoo qaato oo gabagaba ah ma fahamsantahay adduunyadan wax inaan kasoo qaato waa fahmi kartaa nus saac in lagaa rabo wadankii wixii ka dhacaya siyaasaddii inaad dowladdii inaad ka hadishid inaad soo qaadatid adduunyada wixii ka dhacayay inaad kusoo gabagabaysid hal ees nus saacaas marka waa fahmi kartaa sidaa ugu baahan tahay waxa la yidhaahdo inaad maarayso waqtiga oo ka faa'iidaysto qodobo xiisa lehna aad soo qaadato marka dadkaan lasoo shaqeeyay cawkaa ka mida waxaa ka mid ah ma fahamsantaa cagmadhige wariyaashii waaweynaa dhan ayaan isla soo shaqeynay dhinacaas wey akademiyadaan ka shaqeeyay cilmiga fanka iyo sugaanta qaybtii luqadahan ka shaqeeyay waxaana naloo xil saaray inaan qorno qaamuus iyadana qayb weyn ay ahayd sidoo kale waxaan tababaraynay dhalinyaro cusub oo soomaali ah luqadda af soomaaliga jaamacadda saddex qayb oo iskaalmeynaysa ahayd oo iskaashanaysa waa tahay professore barnaamijka aada ayuu u wanaagsanaa inaan sii wadno waqtiga uu kaabiga noogu haayo maxaa kusoo gabagabeynaysaa hadalkayga waxaa kusoo gabagabeynaa marka hore aadaan u mahadsantihiin bahda soomaali weyn laba qayb ayaad qaadateen qaybtii waxaa waaye abaabulka barnaamijka waana idinka filayay magaca wadatiina magaca weyn waaye greater Soomaaliya waa Soomaali weyn waa magaca ugu weyn oo Soomaali maanta ay isticmaasho ogaadana magaca Soomaali weyn af Soomaaliga ayaa maanta u noqon karo horseed oo Soomaalida oo dhan isu keeni karo maadaama uu yahay astaanta midnimada ummadda Soomaaliyeed idinkana waxaa wadataan astaanta midnimada Soomaaliyeed oo ah Soomaali weyn ama ban Somalism ama greater Soomaaliya aada arrintaas ugu mahadsantihiin soo dhaweynta ay muujiseen waxaana rajaynayaa in iskaashi wax wada qabsi uu dhaxmaro akademiyadeena iyo bahda Soomaali weyn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar kale kulantan dambe dhageystayaal iyo daawadayaal beeshka naga daawanaya waxaan ku soo afjarayaa barnaamijka arrimaha bulshada iyo ganacsiga kulantan dambe iyo isbuuca dambe waxaan idinkaga tagay Xuseen Cabdi Cali soo farsamada yaqaanka oo maanta inoo fadhiyay mar kale kulantan dambe sidaas iyo nabadgelyo برنامج فرعي أصبر